waata asxaabta waa mar kale iyo Ayuub Show iyo muuqaal cusub oo cajiib ah wali waxaan joognaa magaalada Riyaad maantana waxaan tagi doonaa ciyaaray wada ciyaari doonaan kooxaha Al Nassr FC ee uu ciyaaro Cristiano Ronaldo ciyaaryahanka caanka ah wada taqaanaan iyo Al Abha oo iyaduna koox kale oo aad u khatar runtii hadda waxaan siibsan doonaa goor dhowna aan gaari doonaa goobta lagu gado garamaanta hadba kooxda taageersan tahay أنا كوحدان تاجرسنا هاي جوردو يا دوغان دونتا ما أنت نروح نصور كدونا ياريها كدوني دوغا عجيبسن كريستيانو رونالدو كيف حالك؟ والله الحمد لله كيف حالك أنت؟ إن شاء الله كويس هذا ناصر تفضل This is ناصر رونالدو أصحابتها يمكن نروح نقعدنا جرانكي كوحدة على النصر FC حاجة دنبية كجية لا تلو ciyaaryahan kii runtii waxa weey aad aan ka wahaa dhamaantii waxaan uga haynaa mid ka fikirayo mid ka mid ah ciyaaryahanada Al Nassr hadda waan sii jeedin doonaa ciyaaryahankaas ayaan maanta xiran doonaa haddii ay baydmo garankiisa waxaan tagi doonaa ciyaarta maanta dhacaysa oo runtii ciyaar aad u adag la soco asxaabta garoonkan haatan galeynaa waxay bana joognaa gudii garoonkan galno سنة gudaha kaga jirnaa garoonka kooxda Al Nassr sidoo arkaysan halkan waxa isku soo baxay kumanaan ka mid ah taageerayaasha kooxda Al Nassr maadaama magaalada lagu ciyaarayo ay tahay caasimadda Sacuudiga ee Riyaad kooxdana ay ka dhisan tahay magaalada Riyaad garoonkan haatan joogno ayaa sidoo kale waxa lagu magacaabaa Marsuul Baak waa lagu magacaabaa qiyaas ahaanna waxa uu qaadaa in ka badan 25,000 qof asxaab fara badan ayaa ay oran jirtay bal waxaan u baahanahay goatki inaad live ku soo aragto maanta goatki ama Ronaldo live ayaan ku soo arkay ciyaartana waxay noqonaysaa kooxaha Abha iyo kooxda Al Nassr FC garoonkan ayaa waxaa iskale naadiga sida weyn caanka u noqday dhawaantan ee lagu magacaabo Nassr FC kaasoo ka ciyaara Saudi Arabia isla markaasina ah mid kamid ah kuwa ugu fiican kooxaha kubadda cagta ee Sacuudiga iyo bariga dhaxaba horaantii sanadkan kadib markii uu ku biiray ciyaaryahanka sida weyn loo yaqaano ee Ronaldo kooxda Nassr ayaa waxay sababtay in magaca kooxdani uu si weyn caan uga noqdo dunida iyadoo imaanshaha Ronaldo ee Nassr uu ahaa mid kamid ah kuwii ugu hadalhaynta badnaa ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyada ee sanadahan goobtan lagu ciyaarayana waxaa la yiraahdaa Marsuul Baak waxaana iskale naadiga Nassr